الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى markuu tilmaamayay dadka jannada iska leh oo Ilaahay tabaaraka wa tacaala uu jecel yahay samafalka iyo wanaagii alla ka cabsigana lagu yaqaano sifaadkooda iyo tilmaamahooda wuxuu Rabbi ka mid dhigay inay yihiin dad cadadooda iyo ciilkooda qariya oo celiya oo xaniba oo aan fulinin. الله تبارك وتعالى قرآن الكريم كاوحو ليهي دحديث وحو كويري waxaad u degdegtaan janno balladkeedu uu yahay samaawaadka iyo dhulalka ballacooda. jannadaasi waxaa loo diyaariyay dadka muttaqiinta ilaahay ka baqa yihiin sifaadkoodu muxuu yahay alladina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra wa dadka gacantoodu furantaho wax baxsada hadday xaaladdu adag tahay oo dhib qabaan iyo hadday dheef haystaan oo ladan yihiin labadaba gacantoodu waa furantahay waxbay bixiyaan. walkaadhimiina alghayd ciilka iyo cadhada haysana way qariyaan oo way celiyaan way xakameeyaan. walcaafiina can innaasi dadkana kuwa iska cafiyo saamaxa waa allahna wuxuu jecel yahay kuwa muxsiniinta waa iyaga. mar ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay muxsiniin yihiin, marna inay muttaqiin yihiin, marna wuxuu ku tilmaamay inuu jecel yahay. tilmaamahooda waxaa ka mid ah inay cadhada qariyaan oo cadhada celiyaan oo isxakameeyaan markay cadhoodaan. waana tan nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi uu axaadiistiisa ku bayaaniyo ku cadeeyay. nin baa nabigeena u yimi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow ii dardaaran. riwaayo kale waxay leedahay wuxuu yidhi rasuulka ilaahay waxaad i dhahdaa oo i bartaa kelimooyin aan la noolaado oo noloshayda ay anfaca hana igu badinin si aan u halmaamin. waxaan rabaa wax yar oo fahmo kadibna aan dhaqan geliyo la noolaado. wax badan haddaad ii sheegto waan kala halmaami laakiin ii koob ii ururi. nabigu wuxuu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam ha cadhoonin. waa tagay ninkii sidii riwaayadka qaarkood tilmaamaya malaha markuu tagay kelimadii ha cadhoonin ahayd ayuu xoogaa saluugay. waxaan raadinay oo dhan ma cadhoonin ku soo ururtay ma cadhoonin. waa soo noqday wuxuu yidhi rasuulka ilaahu ii dardaaran. nabigu wuxuu ugu celiyay ha cadhoonin. haddana waa tagay haddana waxoogaa way deeqi weyday sida muuqata uu soo noqday wuxuu rasuulka ilaahu ii dardaaran ha cadhoonin baa lagu yidhi. intaasoo dhan nabigu wuxuu dardaaran uga dhigay kelima wax walba u ururisay. wuxuu ku yidhi ha cadhoonin laa taqdab. nacam ninkii isaga ahaa wuxuu leeyahay waxaan aad uga fikiray buu yidhi markii dambe aad u dhuuxay nabiga hadalkiisii ahaa ha cadhoonin 3 goor uu ugu celiyay ayaan markii dambe aad ugu fiirsaday buu yidhi maxaa dhacay oo inta uu kugu celcelinay. markaas waxaan ogaaday buu yidhi shar oo dhan inuu ku jiro cadhada. shar oo dhan waxa kulmiya cadho. imisa ninba ama imisa ruux baa cadhootay oo cadhadu ay ka keentay inay afkiisa ka soo baxdo kelimad diinta uu kaga bixi. imisa ruux baa cadhooday oo cadhadu ay ka soo saartay adinkiisa inuu dhiig islaam galo oo naar galo. imisa ruux baa cadhootay gurigiisii dumiyo xaaskiisii furay. imisa cadhootay oo ku hadashay kelimaad halis ah oo uu naarta intaasoo sano ugu hoobtay. لا تغضب شر أردن غضبك كجرا عرضك كجرا عرضني بنبي بقول صلوات ربي وسلام عليه. وحنا فهمي بقول سرتان فهمي بقول مرك سرت كجرتها عرضن مركز فهمي بقول نيكي صحابي قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيدا استرادت وحلو بها هي إن عرض الإسك حكمي عرض الشيطان باكينا شيطان أدونا يا آدمها إنه كفى إذا استو أيوح وقلنا يا حالت
xaaladda cadhada markuu geliyana ibni aadamkii isma xakamayn karo siduu doonuu u wadanayaa marka caqligii xakamayn lahaa alla ka cabsigii xakamayn lahaa wixii celin lahaa oo dhan buu ku fadhiisanayaa kadibna siduu doonuu u isticmaalayaa dagaal buu gelinayaa wuu gacan qaadayaa aflagaaduu samaynayaa tilaabooyin buu qaadayaa dhiig buu daadinayaa wuxuu doonuu ku kacayaa leanna waa la qabsaday ninkii baa maamulanaya oo haysta sidaas daraaddeed laa taqdab buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh macnaheedu ma aha xadiiska lagama wado cadhada laf ahaanteeda ha cadhoonin maaha cadhadu sideedaba waa dabiicad bini aadam waay waa wax ilaahay aadamaha ku abuuray maadaama ay tahay sifo ku abuuran wuu cadhoon oo wax kugu abuuran ha samaynin suurtagalba ma aha lagama wado sidaa laakiin waxaa laga wadaa laba macno macnaha koowaad waxay asbaabta cadhada keenaysa ka fogow taa waad kari kartaa macnaha labaadna waxa way markaad cadhooto isxakamee oo cadhadu waxay ku farayso markaad cadhaysan tahay ha samaynin isceli isxakamee waana midda aayaddu tilmaantay walkaadimiina alghayd ma cadhoodaan ilaahay ma dhihin wuxuu yidhi cadhadu markay qabato ay cadhoodaan bay isxakameeyaan oo cadhaday celiyaan way caburiyaan way qabtaan ma tilaabsadaan sidaas daraaddeed baa waxaa laga maarmaan ah xaaladda aad cadhaysan tahay inaad isxakamayso si aad ilaahay tabaaraka watacaala jannadiisa u hesho nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka sugan inuu yidhi nin saxaabada ka mid ha cadhoonin jannaad geliya nin kale wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow waxaan ilaahay cadhadiisa iga fogeeye ii sheeg ha cadhoonin buu ku yidhi ilaahay inuusan kuu cadhoonin ma rabtaa ha cadhoonin nacam iska ilaali cadhadu inay ku qaado ciilku inuu ku qaado iska ilaali isxakamee waxaa ka sugan nabigeenna sal alla alay wasalam sidoo kale inuu yidhi ruuxii cadhooda ciil iyo cadho qaado ay ku dhalato oo isagoo kari kara inuu aargoosto ciilkiisa iyo cadhadiisa bogto isagoo kari karo awood leh haddana isxakameeya cid aad u cadhootay waa cid kaa tabar yar waa cid aad awood u leedahay cadhadaada waad ba'san kartaa waad ku cadho baabi'i kartaa ruuxii isagoo awood leh haddana cadhadiisa xakameeya nebigu wuxu uhi sal alla alay waslam maalinta qiyaamada waxaa looga yeedhayaa addoommada oo dhan korkoodaa looga yeedhaya aaway hebel baa la leeyahay iyadoo kulli la wada arkayo aaway hebel markaasuu soo baxayaa maxaa la siinayaa markaasaa wuxuu nebigu uhi sal alla alay wasalam alla wuxuu khiyaar gelinayaa dumarka cadcad ee indhaha waaweyn ee quruxda badan ee jannada ku abuuran dumarkaa iyagaabaa waxaa la leeyahay intaad doonto ka dooro intaad adigu rabto ka dhereg tiradaad rabto intaad rabto ururso kadibna intuu rabay markuu la baxaa ilaahay tabaaraka watacaala siinaya muxuu ku helay waa cadhooday awood buu lahaa waa isceliyey ilaahay dartii buu isu celiyey haddaad cadhooto si aad cadhada isaga xakamayso ina kuu qaadin sida nabigeenna ka sugan sal alla alay waslam haddaad taagan tahay fadhiiso haddaad fadhidana seexo waxaa nebi maxamed ka sugan sal alla alay waslam inuu yidhi hadduu midkiin cadhoodo isagoo taagan ha fadhiisto hadday cadhadii dhaafto ka tagto uu dego waa khayr hadday ka tegi weydo ha seexda buu nabigu yidhi salawatu rabbi wasalam caleyh dhinac u seex ilaa ay kaa tegayso sababta waxa weeye ruuxu markuu taagan yahay hadduu cadhoodo taagnida wuxuu ku samayn karaa wuxuusan samayn karin markuu fadhiyo markuu fadhiyana wuxuu samayn karo ma samayn karo markuu dhinac u jiifo yacni camali ahaan iyo ficil ahaan baa waxaa loo xakamaynayaa cadhada wixii ka dhalan karay ayaa la xakamaynayaa seexo ilaa ay cadhadu kaa tagto waxaa kaloo nabigeenna ka sugan sal alla alay wasalam maalin isagoo saxaabadiisu la fadhiyaan ayuu wuxuu arkay laba nin oo caytamaya iscaayaya is-aflagaadaynaya labada nin mid baa aada u cadhaysan oo ay xididadu kareen oo wejigiisu isbedelay oo wejigu bararay ciilka iyo xanaaqa haya dartii markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam waxaan ogahay buu yidhi kelimo erey weedh hadduu dhihi lahaa waxaan haystoo dhan uu ka degi lahaa balaayadan karkarinaysa iyo kacdoonka wax ka dejin lahaa baan garanayaa buu nebigu sal alla alay wasalam acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim hadduu dhihi lahaa ninkaad arkaysaa waxaasoo dhan waa ka degi lahaa
ninba maqlay nabiga hadalku markuu lahaa sallallahu alayhi wasallam uu tagay ninkii cadaysnaaba uu tagay wuxuu ku yiri wariyaahe war nabigu saasuu leeyahay amarka nabiga qaado waxa tirada a'uudu billahi min war shaytaanka iska naar markaas wuxuu yiri ma inaan walla hadal u aragtaa buud Soomaarti inaan fayooba ma waali buud ka cidhaaf ka cidhaaf shaytaankii ka cadaysiyay ee wajigiisa saa u bedelay ee sitay ayaa mar labaad wuxuu u diidan yahay xalkii iyo daawadii uu isticmaali lahaayoo nabigu soo jeediyay buu u diidan yahay waana sida dad badan maanta ku dhacda markaad aragto soo kacsan oo rafaadsan hadda rabto war shaytaanka iska naar war ka cidhaaf buu leeyahay waa miyaa wallahi Soomaartina miir qabo war ma waalida waa lagu sitaaye iska dhig ninkii baa ku sitay a'uudu billahi dheh nabigu waa ka dagayaa buu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xulusha nabigeenu soo jeediyay way salawaatu rabbi wa sidaas daraadeed waxa loo baahan yahay sax bini aadamku waa cadhoonaya caruurtu ku cadhoon xaaskii buu cadhoon xaaskii baa cadhoon dadku ku cadhoon cadhadu waa shay iimaanaya laakiin marka horena iska ilaali haday timaadana isxakamay oo isceli isxakamay oo isceli ha fulinin adoo cadhaysan tilaabaha qaadib wax walba ka iimaan kara wax kasta ka dhici kara markaad cadhaysan tahay saas daraadeed baa nabigeenu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ruuxa adag ma aha ruuxa dadka ruuxa isqabtaan balagda xooga badan kaas ma aha cid kasto ilaga tamaano isqabtaan ba ruuxa lagdaay ruuxa xooga badan ruuxa ma aha buu nabiga sallallahu alayhi wasallam laakiin ruuxa xooga badan waa ruuxa naftiisa xakameeyo oo celiyo markuu cadhoodo shakhsiga dhabta ah ee xoogiyad lagu tilmaami karo waa kaasuu nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saas daraadeed hal isxakameeyo cadho asbaabteeda ha laga fogaado haddii la cadhoodana tilaabooyinka nabigu inoo tilmaamay sallallahu alayhi wasallam hal la qaato oo iska xakameeyo oo isceli oo shaytaanka iska naar oo fadhiiso oo haddaad fadhigu ku anfici waayo seexo oo weyse qaado oo tuko oo shayaatiinta iska eri intii ay kugu tuuri lahaayeen meelaadan ka soo waaqsan kareynin oo ay kugu tuuri lahaayeen fal aakhiradaadii adduunkaaga baabi'in karaya صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك